sheekadii qoyska Axmed cunto iyo sirta buskudka. Ma rabtaa inaad qosol la ilmayso? Bal aan idiin sheego sheekadii Axmed cunto, wiilkii caloosha weynaa. Axmed cunto magaciisa waa uu yaab badnaa. Subax walba wuxuu ku soo toosaa baasto, galab walbana baasto ayuu rabaa. Hooyadii mar walba way la yaabtaa, wiilkan baastada jecel maxaan ka yeelaa? Maalin maalmaha ka mid ah, hooyadii waxay karisay saxan buskud ah. Laakiin Axmed cunto sirtiisa waa yaqaanaa. Hooyadii waxay ku qortay saxanka, ha taabanin. Waxaa kugu suga waa cashar adag. Axmed cunto wuu fekeray. Kadib wuxuu qoray warqad yar, anigu ma taabanin. Waxaa kugu haray waa baastadaydii. Markii hooyadii timid, qosol ayay la dhacday. Hooyadii waxay tiri, baasto la'aanta, kaalay buskudka aad anigu ma taabanin ku leedahay. Qoyska oo dhan way qosleen. Haddaba adiga iyo qoyskaaga ma jeceshihiin sheekooyinka qosolka badan? Like garee muuqaalkan, kommentiga noogu reeb sheeko qosol leh oo qoyskaaga ku dhacday. Sidoo kale subscribe saar channelka si aad u hesho sheekooyin badan oo qosol leh.